madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta booqasho rasmi ah ugu ambabaxay wadanka dariska ah ee Itoobiya ayaa kulan rasmi ah waxa uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. kulankaasi oo hadkii ugu horeeyay ee noociisa ah ee dhaxmara labada hogaamiye ayaa lagaga wada hadlay arrimo badan oo khuseeya danaha labada dal iyo iskaashigooda gaar ahaan dhinaca amniga, nabadgelyada, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee horumarka dhaqan-dhaqaale ee wadamada Geeska Afrika. waxaa sidoo kale lagu xusay in xiriir qoto dheer uu ka dhaxeeyo oo soo jireena Soomaaliland iyo sidoo kale Itoobiya. kulanka dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku wehelinayay wasiirka amuraha dibadda ee dalka Itoobiya Dr. Wargane Gabayaho iyo madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. dhinaca Soomaaliland wax madaxweynaha Soomaaliland ku wehelinayay wasiiradiisa amuraha dibadda Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, arrimaha gudaha Mudane Maxamed Kaahin Axmed iyo horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Carashire iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska Maxamuud Xasan Sacad Saajin. sidaasina waxaa lagu sheegay warmurtiyeed ay madaxtooyada Soomaaliland ka soo saartay kulanka dhaxmaray labada hogaamiye oo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy